بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجهرين وقعي وفرحان إسماعيل جبريل كسجن قبل كسرار قار أهان تجمد بلارس أما تولد بلارس وحنساكا أنا كسوك اعتماد سفر ديرنا كسو قاضي قبل كتقدر iyada oo aan saako dhan safar ku soo jirnay una soo gurmanay dadka ay aafeeyeen abaaraha baahsan ee ku nool degmadan ee xoolo-dhaqatada walaalayaal waxa biyaha noo soo wakiishay oo noo soo dhiibay ururka hablaha ee aragga naafada ka ah Tof Baleen Garalis ee fadhigooda yahay magaalada Hargeysa loo soo gaabiyo TBG kuwaasoo lagu yaqaanay ama caawin jiray carruurta iyo haweenka jilicsan ayaa iminkan ka qayb qaadanaya waxay u soo gurmadeen walaalahooda ay abaarta saameysay iyo xoolihii ka baxeen biyana ka dhamaadeen waa soo gaarsiinay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan insha Allah ta'ala hadda qorraxda kulushahay soo korna safar aan ku soo jirnay waxa Allah subxaanahu wa ta'ala soo gaarsiiyay goobtii iyo tuulada uu talagalay tuuladoona saruntii ay ka muuqato haraad baahsan haraad aad iyo aad ballaaran oo xoolihii aan ugu dulnay mawaashii ugu dulnay iyagoo 12 casho qaday oo biyihii markaan hadda keenay ka cadbay ka dhirgay taxaafadina jirkaamada la soo yaaceen waxay ku cadaynaysaa marka dadka oo ku gasho wareysato inay abaar iyo biyo la'aan aad u baahan ay ka soo dhacday tuuladan waxay ku tirsan tahay ama waxay ka mid tahay tuulooyinka badan aan la tagin ee laabka iyo buuraha dhexdooda ku jira laamiyad ma maraan dadku dawladdu kama war hayso ma tagato insha Allah ta'ala waxaan oran lahaa xaqiiqatan tuuladan waa tuuladii ay sida dhabta abaartu ay gaadhay biyo la'aantuna ka dhacday barkaday biyo ugu jiri jiray tuuladan oo barkaday lahayd barkaduhuna way go'aan roobkii sanadkuna ma soo gelin biyo ma gelin oo ma helinba markaasay noqotay inay barkadina isla markiiba ay go'aan marka muddo hadda laga joogo dhowr bilood ayay biyo la'aan yihiin oo aan biyana caawima soo gaarin iyaguna awada ku shubtaan aan haynin insha Allah ta'ala waan soo gaarsiinay anigoo ah wakiilka u qaabilsan gobolada bariga ururka hablaha Tof Baleen Garalis ayaan insha Allah ta'ala soo gaarsiiyay halkan ku doomi doona insha Allah ta'ala insha Allah waxaan ku wareejin doonaa oo ku soo dhaweyn doonaa odayaasha magaalada iyo islaamaha insha Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد علي جامع أنا مقعد عبد علي جامع محمد وضيقي تولده هيركي waxaan ka warbixinayaa maanta waxaan noo timi booyad sida wadanka biyo iyo abaaruhu ay wadanka abaaruhu naafeeyeen waxaan la soo gaaray hore ma jiraan booyadaas maanta noo timi labadii duhurnimo ay dadku haraadka u liita iyo oonka ayna soo gaarsiiyeen farxaan Ismaaciil Jibriil iyo inamadii la socday ee lagu yiri urur baa soo dhiibay hablaha oo naafada ah waa uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh waana uga mahad celinaynaa dawlad ama saha noqoto xukuumad iyo cid kale toona kama soo gaarin magaaladan wax hore kama soo gaarin waa la sugayaa iyadoo ka tirsan gobolka Caynaba ee Saraar lagama soo gaarin wax taa kulahay weli tanna waxaana looga keenay Togdheer ayay ka timi sida laajigeed waxa baaq u dirayaa inay dadkan wadooyinka leexsan inay ogaadaan mas'uuliyiinta dalka السلام عليكم بسم الله magacaygu axmed faarax dibad waxaan ka mid ahay odayaasha magaalada qaryada ballaadhiseed halkan waxaan ugu boodiyo caawimo uu wado farxaan Ismaaciil Jibriil uu hablaha uu halkan ka sheegay ka soo qaaday halkan uu kaga gudoonay dadkii lagu talagalay oo manaada cabaya inta ka bacdi waxaan baa u diraynaa dhammaan waxa daneeya abaaraha iyo aafooyinka dhacay haday tahay xukuumadda jubbada Soomaaliland haday tahay dadka kale muslimiinta dhammaan dadkaas oo aan dawladda wax hore ka arag baanu baa u diraynaa baaqaasoo ah abaar baa ka dhacday baahda dalka
iyo degmadan ballaadhiseed iyo sida loo ogyahay siiba gobollada bari markaa waxaan u diraynaa hadday tahay xukuumadda golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi waxaanu baaq u diraynaa cid kastoo daysa dadka in biyo lala soo gaadho maxamuud waxaan joogaa magaalada la yiraahdo ballaadhis annagoo haraad fara badan iyo baahi oona ku qabna oo aad iyo aad dad iyo duuyo haraadan ayaa waxaan noo yimi saaka maanta gadiidkii booyad biyaa annagoo dad iyo duuyo sabaraagaa u dul tuban booyad biyaa baa noo timi ilaahay waa noo keenay waanu cabnay waanu ka dheegnay maxay tahay ilaahayna mayo dadkii noo keenay waanu uga mahad celinaynaa waanu uga mahadnaqaynaa ururka soo dhiibay hablaha maxay hayto maxay soo fangareeyay noo soo diray noo keenay haraadka iyaga iyo baahida iyada iyo onka ka qayb qaatay waanu mahad celinaynaa maxay hayto noo soo safray noo soo taxjiiray noo keenay waanu mahad celinaynaa waanaanu ka dheegnay waanaanu cabaynaa waxa kale aanu leenahay in loo soo kordhiyo oo la ogaado oo baahida iyo abaaraha iyo haraadka iyo maxay tahay haystana la ka taakuleeyo oo maxay tahay nala soo ogaado oo wax nala ka taro oo maxay hayto baahida waanu ugu farmaantii baanu cabaynaa dabirna la dhaafmayso dad badan la soo gaari maayo buuraha ku oomay dad iyo dunyada leh waxaan doonaynaa dayna la ogaado nala soo kordhiyo tan waa ka mahad celinaynaa waanu mahadnaqaynaa wixii noo soo dhiibay mahad baanu haynaa waa u hambalyeynaa annagana maxay tahay ilaahay ha noo calfo